qofkii salaada hawinta oo daciifsada oo sidii loogu talagalay aan ula imaanin asagana 15 ciqaabood ayaa lagu ciqaabaa 5 adduunka lagula ciqaabaa 3 waa marka uu dhimanayo 3 qabriga ayaa dhexdiisa lagula ciqaabaa 3na marka uu qubuuraha ka soo baxayo adduunka 5 waxyaabood oo lagula ciqaabayo midda koobaad barakada ayaa cimrigiisa laga tirtiraa axadku taariku salaadka dadka kula mid ma aha sharaf uu leeyahay malaha ciriiri iyo rafaad ayuu ku jiraa tafash iyo dhib ayuu sheegaa habeen iyo maalin taariku salaadka lacanad allah ku soo degta habeen iyo maalin sidaa darteed ayaa barakada waxaa laga tirtiraa cimrigiisa midda labaad waxaa laga tirtiraa calaamadu ay leeyihiin dadka saalixiinta ah wejigiisa dadka iimaanka leh oo rabbigood rumeeyey tacrifahum bisiimaahum calaamadaha ay leeyihiin ayaa lagu aqoonsadaa siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud salaada raadkeeda ayaa ka muuqata buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala waa u iftiimaysaa qiyaamaha haddii la tago ninkan calaamadaha dadka saalixiinta ayaa ka maqan wejigiisa ayaa laga tirtiray midda saddexaad camal walba ee uu qabtaan laga ajir iyo tawaab siinaynin ileen waa axad kaafir ah dadka kaafiriinta camalada ay qabanayaan karamaadin ishtadad waa dambas la firdhiyey maalindo caasif ah oo dabeel daran ay jirta oo kaley la mid tahay ilaah wuxuu kaloo yidhi kaafiriinta camalkooda ka saraabin biqiica waase dhalanteed iyo dhaandaragaale oo kale oo meel sibsib ah ama bannaan markaa ka muuqda waa wirwirka qoraxda meelay ku dhacday oo oofka ooman uu biyo u maleeyo ilaa uu yimaadaan lam yajidhu shay-a uusan waxba markaa ka helaynin wuxuu la mid yahay ka dulumaatin fii baxrin lujjiyin yaqshaahu min oo mataqaana uu daboolay mawj min fawqihi saxaab dulumaatun bacduhaa fawqa bacd waa mugdiyaala qaarkood qaar kale uu saaran yahay idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha hadduu gacantiisa bannaan ka dhigo inuu arka sigi maayo qofkuusan ilaahay nuur u yeelin famaa lahu min nuur assalaatu nuur salaaduna waa nuur nuurkii ayaa ka maqan cimrigiisaa barakada laga tirtiray qiimo iyo wanaag uu leeyahay markaa male camal kasta uu sameeyaan laga ajir iyo thawaab siinaynin midda afaraad kor loogu qaadi maayo ducadiisa samada ilayhi yascadu alkalimu alطayib waalcamalu alsaalixu yarfacuh maca daalika camalkiisaan kor loo qaadayn ducadiisaan kor loo qaadaynin haybad iyo sharaf uu leeyahay ileen ma lehe midda shanaad xad iyo nasiib kuma laha ducada dadka saalixiinta ah assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin waa dadka masaajidada ku jira waa dadka jiran oo guryahooda iyagoo jiifa dukanaya si fiican ayay u gaaraysaa qabiil hebel ayaa raayay qabiil hebel ayaa badiyoo laga badiyey ayuu qaxwooyinka la fadhiyaa wacalaa cibaadiillaahi alsaalixiin ma soo gaaraysa mana ugu imaanayso ilaa salaada uu wanaajiyo cadaabyaalka asiibaaya marka meydka uu dhimanaya waxay tahay asagoo daliil ah oo dulaysan oon sharaf lahayn ayuu dhintaa taariku salaadka markuu dhimanayo dhimashadaa lagu adkeeya cadaab xunuun badan ayaa lagu cadaabaa malaa'ig ayaa loo soo diraa si saxariir oo dhib badan xayaatada uga qaada hal salaad ayuu tukan waayey oo diinta alle ayuu la imaan waayey ilaa inuu macaasi iyo xumaan sameeyo maahane maca daalika ayaa axadka marka uu dhimanayo asagoo daliila ayuu dhintaa midda kale asagoo jaayaca oo baahan ayuu dhintaa asagoo ooman ayuu dhintaa xataa haddii la cabsiiyo biyaha badda oo dhan waxay u tarayaan markaa malaha midda asiibaysa qabriga inta uu ku jiro qabrigiisaa laysku ciriiriyaa ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan oo kuwii bidixda jiray ay midigta maraan kuwii midigta jirayna ay bidixda soo maraan qabrigaa lagu huriyaa taariku salaad gabdhaha salaada ka tegow ilaah u soo rujuuca musalsalyaalka ag fadhiyo cajalooyinka filinka habeen iyo maalin daarta taa ilaahya ka dhigtoo salaadaha aan u qumin una istaagin war ka soo kaca oo tawba keena waad u jeediin feeraha laysdhaafsiinaa qabriga inta lagu jiro midigtaa bidixda maraysa midigtana bidixday soo maraysaa qabrigaa laysku hurinaa oo cadaab shidmaayo oo ololaya ayaa dhexdiisa ahaaday sidaa darteed ayaa sidaa loogu sallidaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday ayaa la yidhi wiil ayaa walaashii dhimatay mar allaala markii la soo aasuu qabriga uga soo tegay kiish uu maal ugu jiro ma uusan ogeyn qof daraynayn qof dareemayna male ilaa laga soo insiraafoo laga soo gadoomay qabrigeeda ka gadaal ayuu wiilkii xasuustoo qabrigiibuu u noqdaa la yidhi qabrigii ayuu faagay mar allaala markuu fatashow qabriga
qabrigii qoday ka gadaal ayaa wuxuu helay qabrigii oo yashcal ah oo dushiisa naar uu ku holcaayo qabrigii oo dhanaati naarkoo kaleoo muufada aad ku dubaysa u huraayey carada ayuu ku rogay uu ku celiyey waa soo ordoo hooyadiis ayuu u soo noqday baakiyan asagoo oynaaya xasiin ahoo tiiraayeesan wuxuu dhaa yaa ummaa hooyay waxaad iiga warantaa walaashay xaaladeeda maxay samayn jirtay hooyo hooyadii waxay ku tiri maxaad ii su'aashay hooyoy qabrigeedaan arkay buu dhahay oo dabka ololaaya oo naar ku shidmaaya hooyadii way oysay ayadana waxay tiri wiilkeeyow walaashaa waxay ahayd tatahaawana bisalaa salaada ayay